quraanku wuxuu ka warramayaa shimbir sababtay in ummad dhame ay islaamto mac boqoradoodii. ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka wuxuu kaga warramayaa shimbir hudhud la yidhaahdo. culamada Soomaaliyeed waxay odhan jireen waa guuguule. shimbirka hudhudka la yidhaahdo ama guuguulaha Nabi Sulaymaan ciidan badan buu watay, afaf badanna wuu yaqaanay. maalin maalmaha ka mid ah ciidankiisii xaadiriyay buu wuxuu waayay guuguule ka mid ahaa ciidankiisii. dabeetana wuxuu yidhi guuguulahaasi ama cudurdaar buu la iman, haddii kale in la cadaabo iyo in la gowraco midun bay noqon, waa la ciqaabayaa. guuguulihii wuu soo noqdaa wuxuu yidhi axadtu bima lam tuxit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin. Nabi Sulaymaan oo axadtu bima lam tuxit bihi, war aanad koobin baan soo koobay buu leeyahay, aqoon baan hayaa. war waxaan ka imi buu yidhi Saba meesha la yidhaahdo waa Yaman, waxaanan ka keenay buu leeyahay naba yaqiin ah, war dhab ah baan kala imi Saba. waa maxay warku wada? innii wajadtu imra'atan tamlikuhum, waxaan soo helay buu leeyahay duul gabadhi xukunto, wa utiyat min kulli shayin walaha carshun cadiim. gabadhaasi wax kastoo boqortooyo u baahnayd waa la siiyey, kursi weyn oo sariir boqortooyana waa haysatay. oo hadduu soo arkay dowlad meel ka dhisan maxaa ku jaban? waa kan waxa ku jaban wajadtuhaa wa qawmaha yasjuduuna lishams, waxaan soo helay buu leeyahay iyada iyo tolkeed oo cadceedda caabuda ilaahay sokadii, oo shaytaan uu jidkii alle ka weeciyey oo lunsan baan soo helay buu leeyahay. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. ورقة أنت سكو قرطي بيرقاب ورقة دي باللوغة قصة محانو كده. النتيجة وامحي قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نتيجة وامحي هدهد أي وحو الصبابي إن أي بغرطي يدني إسلام طاي تلاحظه إني ظلمت نفسي إلهي ونفتي دواد ذلمية وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هدهد كشقاد وقبتي وامحي وحو قرطي إساقا هي قولة إن أنا يصفقرنا إن حتى هدو التوحيد كوشيق لها دن محا حلقة وحا حلقة وحو الدوني دا كوغي هاي عيدا يصفقرنا إياه ويا يصفقرنا إياه. قرآن كواكة الماما إياه إنه نبي سليمان لها يا أيها الناس علمنا منطق الطير. نبي سليمان خطبة دي سيوحا كامدة هاي ضدا وحنا لبرايا في شمبراتك. نبي سليمان في شمبراتك يقاني هدهد كمركاسي وحو قرطي إنه يساقوا الرسالة حنباري كراءة warkan intuu qaado cid shaqadan qaban kartay inuu gaarsiiyo, isagana afgaranaysa, qoladana afgaranaysa, tawxiidkana sharxi karaysa. qof muslimaan shaqada qaban karin ma jira, xataa haddaanad afgaranaynin dadka daacaad noqon kartaa, dadka diinta waad gaarsiin kartaa. maadaama shimbiriba uu ku guulaystay inuu bulsho dhan islaamiyo. waxaan leenahay ikhwati fi alcaqiida, waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan meesha culumaa joogto oo wadaadaa jooga oo hebel iyo hebel baa jooga oo dad diinta sheegaya jooga. war waxaa mas-uuliyaddu kuma dhacdo, waayo qur-aanku wuxuu ka warramayaa magaalo saddex rasuul diiday, saddex rasuul magaalo diiday oo haddana niman saddexda rasuul ba ahayn uu diin sheegayo. wadrib lahu mathalan asxaab alqarya إذ جاءها المرسلون. dadka waxaad u sheegtaa baa la leeyahay subxaanahu wa tacaala tusaale uga dhigtaa magaaladii saddexda rusul ay u yimaadeen. id arsalnaa ilayhim اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. إلهي wuxuu ka warramayaa subxaanahu wa tacaala magaala rasuul loo diray markaasay beenisay, markaasaa mid kale loo diray markaasay beenisay, markaasaa mid saddexaad loo diray. haddaad soo gasho magaalo saddex rasuul diiday maxaad samayn lahayd? rusushani ama nebi kale ha soo diro mundiriin ha ahaadaan saa mufasiriinta qaar qabaan, ama rusul dhaba ha ahaadaan oo xagga rabbi ka timi. magaalo saddex caalim oo kaa waaweyn ay joogaan oo saddexdaba la diiday, ama saddex rasuul oo ilaahay soo diray joogto oo waxba laga dhagaysan waayo, haddaad joogto adigu maxaad yeeli lahayd? halka yaabana istiraahada shaqadii rusushaba laga diiday adiga maxaa kuu yaala? laakiin ilaahay wuxuu ina barayaa dhaqanka qofka muslimka siduu yahay. wajaa min aqsa almadinati rajulun yas'a قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ابن هبيرة وزير كله رجل عالم كهابا وحليه قصة ياب كذا وحكم إذا بولي إن كان مركي ألا سفيني
laguma sifaynin nin cilmi leh ama waxba laguma sheegin waxa lagu sheego qura maxay wajaa rajul inuu yimi xagee ka yimi wajaa min aqsa almadinati rajul ka waxa la tilmaamay muu ahay nin xaadiro meelahan culimada ama rususha lagu diiday joogay magaalada dacalkeedu joogay aqsa almadina buu ka yimi wuxuu kaloo quraanku tilmaamaya yas'a warku markii uu soo gaadhay in rusushii la diiday ayuu magaalada dacalkeeda ka yimi waliba isagoo ordaya la leeyo rooraya oo raba shaqada inuu dhaqso u qabto markuu yimina muxuu sameeyay yaa qawm ittabi'u al-mursaliin bulay janb ar-rusul buu ka hadlaya wuxuu leeyahay yaa qawm ittabi'u al-mursaliin wartalkayo rasuulada raaca waayo laba sababood ba ku raaca bulay ittabi'u man la yasalukum ajran raaca midaan ajar idin weydiisanin ajarku waa maxay waa midaan magac maamuus lacag siyaasad waxba ka doonaynin qofka bini aadamka hadduu dareemo inaad dantiisa ku kacsanayso inta badan wax ma aqbalo waayo waxaanaad sheegayso gadaasheeda wuxuu ka akhrinayaa wax kale oo ku qoran oo ayna danahaaga adigu dee wadato in adigu business kuugu jiro ayuu dareemaya laakiin quraanku markuu rususha ka warramay fi suurati shu'ara nabi kasta sloganiska ambiyadu sideen ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru ba kamida ilahi kaligii la caabudo maxaa kale nabi kasta la laha ku dadka qul la asalukum wax ajray idin ma weydiisanayo ku dhabala laha rususha waxa la leeyahay dawaa rasuulka ilaahay soo diray dadka waxaad u cadaysaan ma asalukum alayhi min ajr xoolo idin kama doonayo ku dhaha idan wuxuu leeyahay ninka kani war marka koowaad waxa raacdaan cid aan dan idin kala hayn inay diinta ilaahay idin gaarsiiso mooyaane marka labaadna maxay ah wahum muhtadun iyagu hanuunsan quraanku wuxuu inooga warramayaa laba rasuul haddaynu kuwii hore xataa culamada tafsiirka qaadano quraanku wuxuu ka warramayaa laba rasuul oo talkood la jooga oo ilaahay gacantooda ku soo badbaadiyay oo haddana la beeniyay oo niman kale ka dhinac hadlayaan oo leeyahay rususha la raaco ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamay qaala rajulani min alladheena yakhafuna an'ama Allahu alayhima nabi Muuse iyo nabiyullaahi Haaruun reer banu Israa'iil ba loo soo diray reer banu Israa'iil dulli iyo adoonsi bay ka soo saareen ilaahay subhanahu wa ta'ala bad buu kala jeexay fircawn iyo kooxdii baa la halaagay laakiin waa halku ka bilaabmay jihaadku awwal umma jihaad la faraaqoon kan bay ahaayeen waxa lagu yiri soo ma arkaysaan in ilaahay inta soo halaagay idinka hadaba waxa idin saaran ina jihaatantaan oo baytul maqdis gashaan oo jawaabirada ku jira ka saartaan udkhulu al-ard al-muqaddasah allati kataba Allah lakum dhulka alla idin qoray ba la yiri gala waxay yiraahdeen anagu galimayna hadii ay ka baxaan baanu galayna markii lagu adkeeyna waxay yiraahdeen adiga iyo rabbiga dagaalama adiga iyo rabbiga nabi Muuse u dagaalama innaha huna qaacidun anagu halkaan si fadheenaye fircawn ba ilaahay aada u bariyo gacantaada lagu burburiyay qoladanna adiga iyo rabbiga isku dayaba yiri anagu waa si joogeynaa laba rasuul baa la diiday markaas oo wacdi dhan waday markii la diiday ilaahay quraanka wuxuu ku sifeynaya laba nin oo kale aan rasuul ahayn oo waa maxay qala rajulan min alladheena yakhafuna an'ama Allahu alayhima qala rajulan wax sifo oo kale lama socoto mujarrad rajulan baa lagu sifeeyay laakiin maxaa la raaciyay min alladheena yakhafun an'ama Allahu alayhima laba nin oo kuwa alla ka cabsanaya kamida oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku nicmaystay geesinimo iyo raganimo iyo kala adeeg ayaa waxay ku yiraahdeen udkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin war albabka uga gala isku tuura madax u gala hadda samaysan in dhulka ilaahay baa idin qorayo quraanka la idin ku sheegay quraanku wuxuu inoo sheegaya al-ard allati kataba Allah كدونا وانكو درينا ولا جوجينا دباينا هذه اي محاضر wax ka dhimayahay dadku taasana waxa lagu yiri gala qisada waxa laga jeedaa waa laba nin oo laba rasuul oo la beeniyay ka dhinac hadlaya waxaan ku soo koobayaa dariska dhamaantii nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam goorma rasuul laga dhigay markiisa rasuul laga dhigay imisu xambaarsana iqra bismi rabbika alladhi khalaq ومحي ونبي نمدي
رسول لماذا نعلم ماذا وحيد هذا يا أيها المدثر قم فأنذر كع دق بالليل كان استودوبيا قم فأنذر مركي ليلي علم انت لك بكسو دقي يعني waxaan oran karnaa waxoogaa ru'yada ku arkay iyo labada aayadood quraana baa la tilmaamay waxaan ku soo koobaya markaa wuxuu yahay qof muslima oo aan diintan sheegi karin oo dad gaarsiin karin ma jiro laakiin waxa laga rabaa waxaad garanaysaa inaad gaarsiiso nabigu wuxuu yiri ballighu anni wala waaya ballighu ma shiitum lama oran ballighu anni buu ku yiri nabigu kaleey salaatu wasalaam aniga wixii aan keenay dadka iga gaarsiiya laakiin waxa uu keenay dadka la gaarsiinaya waa maxay kutub akhriba hal aayadna ha noqotee faatixadu hadaba 7 aayadood mid kamid ah faatixadana ha noqotee dadka gaarsiin baa leeyahay idan waxaan ku soo koobaya dariska kani dantan kale iyo dhami waa hal mas'alo ah war ma dareena mas'uuliyadda inay diintan mas'uuliyadda inaga saarantay oo inaga saarantay inaynu hiil iyo hooba siino oo inaga saarantay inaynu faafino oo nafteena iyo gurigeena iyo qaraabadeena iyo dadka inoo dhow iyo basharka intiisa kale baynaynu gaarsiino waxay diintu hadda ku soo gaadhay saxaabadii nabiga iyo taabiciintii baa iska xil saartay oo faafisay imikana waxa muslimo dhan loo gumaystay u socon weyday inaga isku koobnay oo waxba waynu sheegi weynay waxaynu awoodi kari weynay inaynu basharka aynu la noolay siiba kuwiina kan gaalada dhex degani hadda cudurdar bay akhriidii noqonaysa gaalka lagu dhex joogi karo hadii aad diinta sheegtaan dacwadu waxay kamid tahay waxyaabaha baneeya in gaalka la dhex joogi karo hadii kale aakhiro joogistiina xataa ina cudurdar weyda ma ka baqaya waa mas'uuliyadiini waa cudurdaarkiini waa dantiini waa qaab loo cibaadaysto qaabka ugu fiican waayo qofka diinta soo gala wuxuu amal sameeyo dhan in leeg baa Ilaahay adigana ku qoraya hadaad midhoon islaamka ku darsato midkaasi wuxuu cibaadaysto oo dhan marka isaga loo qoro adna in leeg baa miisaanka lagu qoraya warada adigu 10 salaadood ma tukan kartid laakiin hadaad 10 ku darsato maalin kasta 10 baa tukanaysaa hadaad rabto marka inaad jarkaagu bato oo aad aakhira badbaado oo aad nabi maxamed safiir rasmi ka noqoto ilaahay diintiisa la faafiyo sallallahu alayhi nabi maxamed wa alihi wasahbihi wasallam ugu horeyn waxaan jeclahay inaan idin xasuusiyo albaabada ilaahay waa fur qof waliba oo muslim horta ayuu ka daalin inuu ilaahay bariyo ilaahay baa ballan qaaday inuu ka aqbalayo bal sheegay inuu ka xishoonayo adoonkiisu inuu gacmaha soo taago alla ka aqbali waayo uu ka aqbalaya idan kalsooni isku beera markaana ama dhibta ka cabanaysa in ilaahay dhibta ka qaado xanuunadana ka qaado islaamnimada iyo diintooda ku sugo inagana islaamnimada iyo diinta in alla ina fahamsiiyo inuu sugo kuwii xambaare ummadda inta kala gaarsiinay inaga dhigo